بسم الله الرحمن الرحيم أمان قرابة وين سلامي إنمتون نقولنا نواحي جدا كندا waxaa maanta marti nooga ah magaalada Edmonton gudoomiyaha Olympiga Puntland dowlad goboleedka Puntland oo magaaladeeda ka tirsanaa laakiin waqti badan ku maqnaa wadankii hooyo siiba Puntland marka waxaa nasiib u yeeshay inaan caawa kula kulmo saaka kula kulmo magaalada Edmonton oo wax yar ka weydiiyo waxyaalaha uu meeshii la yiraahdo warka uu nooga keenay wadankii hooyo iyo xalay shir uu qabtay dadka hoggaanka Edmonton oo uu maartay warbixin ka siiyay marka bal aanu weydiino maxaan maanta weydiinayaa waxyaalaha isagu uu wadanka ku soo arkay iyo waxyaabaha damacsan yahay iyo meesha uu maartay mas'uuliyadan hadda uu ka soo qaaday wadankii sida uu rabo inuu waajibkeeda u gudto soo dhawow maxamed madow waa dhowhay maxamed cakood aad iyo aadan kaaga mahadcelinayo soo dhaweynta soo dhaweysay iyo maanta aad halkan igu qaabishay xafiiskaaga gaarka ah waan kaaga mahadcelinayaa waad ku mahadsantahay mudane waxaan su'aasha yarta hadda ku weydiinaynaa inkastoo fursado kala jeclay inaan u helo waraysigaaga dheer laakiin maanta waxaan rabaa inaan ka weydiiyo xalay shirkaad ka qayb gashay iyo oo aad siinayso warbixinta ragga haldoorka ka ah Edmonton inaad nagu sheegto wixii alla share garaysay بسم الله الرحمن الرحيم horta anigoo ah hadda magacayga ku bilaabo maxamed aadan xirsi madoobe ahna gudoomiyaha guddiga maamul goboleedka Puntland ahaana ciyaartooydii barasamaadkii hore kubadda koleyga haddana muddo sanad aan ku maqnaa wadankii gaar ahaan Puntland qayb magaalooyinkooda kala duwan ee waaweyn waxaa xalay toole aan la kulmay hoggaankii ama labeentii reer Puntland ee Edmonton waxaana uga waramay xaaladda guud ahaan wadanka oo dhan sida ay nolosha tahay iyo wanaagga iyo horumarka iyo ka socdaan uga waramay haddana waxaan uga waramay baahida maanta ay qabto oo maanta aniga la ii idmaday inaan ka daboolo dhanka sportska ah aan u qabano haddana reer Puntland 9 gobol iyo kontonka degmo ee ka kooban Puntland baahida sportska ka qabto ayaan mataqaana halkaas ugu bandhigay ما شاء الله ما سنتهاي محد حتى وحن dareemaya imsa journal joogaysa magaalada Edmonton magaalada Edmonton waxaan jeclahay inaan joogo maadaama aan rabo inaan magaalada Toronto iyo Europe iyo America meelahaas sii maro aan wacyi geliyo barnaamijkan hadda aan wadana aan u sii gaarsiiyo reer Puntland waxaan rabaa inaan halkan horeenta oo December inaan ka baxo aan ku wajahan Toronto waa kuma santa maxaa ku qorshaysan oo halkan Edmonton aad inta yarta nala joogaysid inaad ka qabatid waxaan qaban doonaa shir weyne ay u dhan tahay reer Puntland oo dhan oo aan ugu warami doono gabi ahaan Puntland iyo baahiyooyinka aan u qabo dhanka sportska in la ka caawino oo mataqaana isheeg ay ka qayb qaataan reer Edmonton tahay baahida ugu horeysa oo rabtiin waxaan kala qabto hadaatiin reer Puntland qaybta Olympiga inta hadda Edmonton joogo elite-ka ama hoggaanka reer Puntland ee Edmonton waxaan rabay inaan sameeyno baahiyooyinka aan u qabno dhanka sportska ah inaan mataqaana u kala qaybino qaybo qaybahaasoo ah feeska koowaad عندنا نقدم نفس كلابات مركب فيس كواد وحنقنايا وحن أباهنا ميل أن كشقينه ما دام أن حسنه دولكي يو بيلدينكي واحد ما أباهنا ديعتر إن هذانا أباهنا هاي إن لقلبيه هذانا أباهنا هاي إن لقسميه الديسي باسكتبول كورت إن أو دمسترن أو ددن iyo mataqaana ii sheeg qalabaadkii oo dhan
kabacdina aan markaan fadhi yeelano oo qaybta koowaad oo fiiska koowaad intaas aan dhammaystirno waxaan haynaa meel aan ku shaqeyno oo aan ku shaqaysano oo mataqaana wax ku qaban karno oo aan ku tegi karno maxaa la ii sheeg dhammaan gobolada dalka oo dhan iyo degmooyinka oo dhan fahmay baahida ugu horeysa inay tahay saldhigga meesha tahay maxay tahay fiiska labaad rabtaa in wax laga qabto fiiska labaad oo wax laga qabanayo waxay tahay markaan ku guuleysano fiiska koowaad aan u dhaqaaqayno fiiska labaad waxaan u baahanahay maadaama dhul weyn aan haysano inaan ku darno garoonkii kubadda cagta ahayd oo meesha noogu yaala iyo orodadii meeshii orodada aan ku qaban lahayn iyo gebi ahaan derbiyada oo dhan oo securityga si loo ilaaliyo inaan wareejino asagii oo dhan aan kusoo wareejino bahalkii albaab laga soo galo securityga aan u sameyno inaan mataqaanaa fiiska labaadna kaasuu noqonaa markaasay dhammaystirmaysaa howlaha aan rabno inaan ka qabanno horumarinta sportska kala duwan noocyadiisa kala duwan ay tahay xagee weeye meeshaas hadda aad rabtaa inaad waxaa ka samaysaan meeshaas waxay tahay beeskeeda waxa waaye waa magaalo madaxda maxaa la ii sheeg garoowe ayadan ka bilaabaynaa laakiin waan u tegaynaa markaan ayada hirgelino kabacdina waxaan aadaynaa gobolada kale oo dhan baan tegi doonaa one by one baahidooda aan ka wargalaynana insha allah alxamdulilah ilaahay maaragtay ha kugu guuleeyo waraysiga maanta intoo hordhiciisa uu yahay in dadka la oga inaan wixii aad hadda intaas soo laabatay aada la qaybsatay baan rabnay maanta inaan ku weydiino kollaba iyadoo maxaa la yidhaahdaa dheer waraysi dheer oo uuna siin doono guddoomiyuhu waan jecel lahay inaan maaragtay helo oo aadadoo si tafaftiran maxaa la yidhaahdaa uga warramaya baahida jirta not only dhinaca sportiga maaha dhinacyada kale oo qaade haddaan su-aasha kusoo gabagabeeyay sababta keenta maxay tahay inaad saartay wejiga sportska iyadoo ay jirtaan ognahay baahida badan inay jiraan waddanka horta sidaad ogtihiin dadka reer puntland dad badan oo waxay leeyihiin fiilalka waa kala duwan yihiin qofba fiilo aqoon u leeyahay aniga waxaan u focus gareynayaa arinta sportska ah waa arrimaha bulshada ee meesha keliya ee dhalinyarada laga dhisi karo inay tahay sportska taasna ay tahay aniga aqoonteeda oo dhan inay tahay sportska aan kasoo bilaabay yaraantii degmooyinkii xaafadihii laamankii heerkii koowaad heer qaran ahaa muddo badana soo waday maamulkiisii aqoon weyn aan u leeyahay sida loo dhisi karo dhalinyarada mataqaanaa qalbigoodii iyo mataqaanaa jismigoodii iyo wax walba iyo dhalinyaradii inay ku mashquulaan inay kubadaha cayaaraan waxa i force garay waxay tahay aqoonteedii inaan wadanka dib ugu laabto oo aan contribute ka sameeyo aniga waxaan ahay nin family man ah waxaan aan sameynayna familkeeda waqtigaas oo dhan aan ka gooyay oo hadda aan hal sano ku maqnaa haddana waxay diyaar ii leeyihiin inay igu support gareeyaan mowqifka aan leeyahay inaan kasal gaaro oo mataqaanaa ii sheeg aan dhalinyarada soomaaliyeed aan ka caawino aqoonteeda aan leeyahay aan u sameeyo shaqo abuur iyo mataqaanaa ii sheeg mashquul ay mataqaanaa sportska adduunka ay ka qayb galaan wax noocyadiisa kala duwan insha allah maxay tahay waxa ugu muhiimsan oo arintan sportsku ay ka caawin karto ilmaha dhalinyarada waxay ka caawini kartaa ugu weyn waxa waaye waqtiyada ay u hayaan iyo macnaha qabiilka iyo mataqaanaa ii sheeg iyo fafalxumada iyo mataqaanaa ii sheeg salafoonada la qaadanayo iyo waqtiga badan ay mataqaanaa ku haystaan magaalada laakiin haddii nin walba uu leeyahay cunug walba uu cayaarayo sportska waana mid fiirsada iyo mid cayaaray u kala bixi lahaayeen waxaana jeclaan lahaa gobolada oo dhan in xaafad walba lagu sameeyo orientation sida ay hayd waagii aniga aan ku nooleen xamar xaafad walba waxay meel orientation ah oo xanuuninta ahayd dhalinyaradii iyo dadka dhan isugu tagaan insha allah arrintaasna mataqaanaa waa gelaynaa wax faa'iido badan ay u leedahay arrintaas waxaynu ku fiican tahay iskuulkii iyo sportskiina waa isleeyihiin cunugan wuxuu noqonayaa stay in school sportskana cayaar maxaa ku soo ganaan lahayd oo fartiin aad gaarsiin lahayd dadka ku daawanaya oo ku nool awoodi kara inay arrintan kala qayb qaataan sideedaba waxaan
kusoo gunaanudaya ama dadkan fartiinta uun diraa waxay tahay aniga haddaan waqtiga ku bixiyey taamka siiyey aan ka gooyey mataqaanaa ii sheega waqtigii aan la qaadan lahaa ciyaalkayga iyo mataqaanaa iyo xaaskayga aan u istaagay arrintan inaan isbeddel ka sameeyo ummadda soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan reer puntland in ay ka qayb qaataan dib u dhiska sportska soomaaliyeed ee puntland dhalinyaradiina wax la geliyo adduunka meelaha ugu muhiimsan wax la geliyo waa dhalinyarada iyo olderska waaye dhalinyaradana waa mustaqbalkii wadanka waaye intay ku jiheesmi lahaayeen meelo kale oo farfalo xumo badan in aad ka qayb qaadataan mar walba ayaan ku boorinaynaa waxaana idin taabsiinaynaa supportkiina inuu miinan noo yahay oo aan wax wanaagsan yahay annagana waxaan tusinaynaa inaan progress ka sameyno oo hawshaasi sidii saxda oo nolol idmaday inaan u qabanno waa mahadsantahay halkaa intaa waxaan kusoo ganaanuday waraysiga yarka ah oo aan la qaatay gudoomiyaha olombiga puntland Mr. Maxamed Aadan Xirsi Madoobe waxaan malaynayaa dad badan baa arrintaas garanaya magaciisa inuu yahay ligan aadna looga yaqaano dhulka Soomaaliyeed oo waa kasoo qayb qaatay ciyaaraha waagii Soomaaliya jirta oo ka qaranka u ciyaari jiray haddaba inta dambe intaanu ka gaarayno oo aan dib dambe u wada xiriirayno oo waliba aan u helayno fursad kale oo dheer oo waliba qaali ah inuu nasiyo naga balan qaaday gudoomiyuhu intaa iyo nabadgelyo waxaan jeclaan lahaa inaad la soo xiriirtaan kolleyba hoos baad ku arki doontaan meesha lagala soo xiriiri karo gudoomiyaha iyo olombiga labadaba iyo magaaladan Edmonton dadka iyagu isu xilqaamay intaba waxa weeyaan waxaan isiin doonaa oo aad dhammaadka waraysigan heli doontaan meesha kala soo xiriirina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.